السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بني سلام يا دمانتين به. waxaan doonayaa in casharkii structure hadii la ka dhigo aan halkan ku soo bandhigo. waxaan filayaa inuu yahay qodobka sagaalaad. qodobka sagaalaad ayuu yahay baan filayaa saan rajeynayo. qodobka sagaalaad ama structure-ka waxaan loo yaqaanaa waa qaab dhismeedka ururka. waana qaabka iyo hal xidhaalaha shaxeed ee ururku uu inta badan يعني كل شيء هاي هذي تهاي GA يا باركي يا management team كي مركا استراتيجية كأور كل كوبية صدح لكبويان صدح على كبويان وchannel assembly قوله جود عند أور كأساسي board of directors كي بدي مركا حالة هذا لقى صدح دورتي GA أو باركا أما تذكر حمنا كأها أوركا خاصة channel assembly waxa laga soo dhex magacaabaa board dhaarantiisa wax la yiraahdo gudoomiyaha ku-xigeenka khasnajiga xoghaynta iyo wixii la halmaado management team kuna waa shaqaalaha ururka hadaba marka qodob baynu galeynaa hadii la ka dhigo qodob ayaynu galeynaa si loo fahmo waxaan ku horeynayaa channel assembly waayo who are channel assembly noqonayaan channel assembly waxa weeyaan golihii guud waa cid ururka asaastay waa asaasayaashii waxa ugu sareeya marka ururka saynu sheegnay shaxdaba channel assembly marka waxa channel assembly-gu istihayati committee waa guddiga ugu sareysa ururka TTG oo ah tala iyo tulaan group oo aanu soo qabsano urur tusaale ah consist of xubnihiis waxay ka kooban yihiin 27 members 7 xubnood ay ka kooban yihiin channel assembly shall meet wuxuu kulmi karaa every 6 months lixdii biloodba hal mar buu kulmi karaa aan extraordinary meetings kulama aan caadi ahayn oo xilligoodii ka soo horeeyana GA-gu is confirmed wuxuu ku aqbali karaa by the request codsi ka yimaada ama uu soo gudbiyo director agaasimaha or 1/3 of GA ama 3 meeloodow hal meel oo ka mid ah xubnaha GA powers of channel assembly awoodaha ay leeyihiin golaha guud maxay awood leeyihiin awoodaha ay leeyihiin waxa kamid ah awoodahan afarta to check value inay hubiyaan and approve oo ay ansixiyaan work programs hawlaha shaqo including ay kamid yihiin periodic plans qorshayaasha ku shaqeeya waqtiga ama xilliyada waxa kaloo kamid ah to approve inay ansixiyaan any amendments wax ka bedel kasta lagu sameeyo ururka TTG documents macluumaadka ururka TTG sida dastuurka iyo policy siyaasadaha waxa kaloo kamid awoodooda to elect inay soo doortaan members of the board of directors xubnihii board ama board directors ka dadkii magaranayay loo yaqaanay golihii sare the channel assembly is responsible ururka uu mas'uul yahay to review inuu dib u eego policy siyaasadaha iyo wixii la halmaala intaas waa GA-gi oo afarta qodob bay qabtaan oo waajibkoodu yahay wad arki kartaa waxaan u gudbiyaa board directors oo ah golihii guud ama golihii sare oo ah golihii ururka hogaaminayay sida gudoomiyihii ku-xigeenkii khasnajigii marka waxa la yiri the board directors shall consist of 5 members 5 xubnood elected oo ay soo doorteen by the channel assembly golaha guud include waxa kamid ah chairperson gudoomiyaha vice chairperson ku-xigeenka secretary qofka xogeynta ah treasurer qofkii khasnajiga ah and other member iyo xubin kale the period muddada ay xafiiska hayaan office ay hayaan board waxa weeyaan ama board directors shall be 3 years waa 3 sano baa yiri the channel assembly golaha guud can terminate wuxuu soo afjari karaa ama soo gaabin karaa cimrigii boardka or some of them ama qaar ka midaba by informal meetings kulan aan caadi ahayn 3 meelood 2 meelood ku diri karaa hadii 30 haayeen soo ahaan
واحد كقاضي لباتني حبنا أوركا تيتشيا باورس كليهن بوركو وحليهن أودهن أي نشيء دونه تبارك دارتس مشلها بدفلون باورس أودها بليهن أودها بوركو حكم دا to control the affairs of تيتشي إنه حكميان أو أفارها أوركا تيتشي نيجو معمولان حكميان بود ديجان وعقله كم دا to prepare إنه دياريان دا أجندة يعني وحي لقاها لها عن organize أو قابيان meetings of the General Assembly كلن كقولها كود معناه شيل وينها شيء وما كشير يو بورك أيات سيقة من قابية بورك كان يسكت بريدة معاسي وحقوا كم دا اللهم صل على محمد حقوا كم دا to approve إن أسعيان membership issues حبين مضى يوحي لها المالا to make decisions on funding وحقوا كم دا ودو دا إني قوام كجاران on funding maalgelinta baaraawin amaahinta aan bayin iyo siinta aan selling iyo iibinta the real property hantida urka jiyeegu boorku iyaga ka mas'uulaha hantida in la iibiyo la xaraasho sifa kale loo bedelo laakiin siday u iibiyeen siday u xaraasheen waxay soo amaahdeen waxyaabahaas oo dhanna shirweynaha jiyeega ayaa laga wareysanayaa wax xisaab cilmi baa looga baahan yahay iyo si kaleera inay markaa wax isugu dubariyaan waxa kaloo kamid ah awoodooda to approve in ansixiyaan all TTC policies dhammaanba siyaasadaha ururka TTC procedures wixii qaynuun ah ama meel mara aan subscription fee iyo wixii la xiriir dhinaca maxaa la yiraahdaa subscription fee ama lacagta to approve waxa kaloo kamid ah in ansixiyaan the structure hababka programs iyo wixii mashaariica ay uu soo jeediyo agaasimuhu ama uu soo certificate agaasimaha fulintu waxa kaloo kamid ah awoodooda in approve gareeyaan the budget of the organization miisaaniyadda ururka xisaabta sanadkii ururku ku shaqeynayo oo ah bisha koobaad koodeeda ilaa 12aad koobisodekeeda xisaab xidhka noocaasana iyaga dejiya oo sii qorsheeya haddii yihiin boardkii ama golihii sare waxa kaloo kamid ah to formulate inay sameeyaan aan implement oo ay fuliyaan siyaasadda ururka xagga mustaqbalka marka laga hadlayo powers of chairperson mid kamid ah waxaan soo qaadanaynaa boardka oo gudoomiyaha si aan gudoomiyaha looga fahmin khalad inuu awood badan leeyahay awoodiisa ay bartaasna ku practice gareynaa the chairperson qofka gudoomiyaha ahi wuxuu leeyahay awoodaha soo socda waxaa kamid ah kow to chair inuu hogaamiyo meetingska boardka and to be iyo inuu noqdo chiefka ururka ama ururka qofka u sareeya TTG la yiraahdo to set waxaa la yidhi inuu dejiyo oo la yimaado of organizational leadership hogaamin ku dhisan macnaha hogaamin wanaagsan waa inuu la yimaado hadduu yahay gudoomiyihii to be answerable bale saddex inuu jawaabi karo general assembly haddii ay wax soo weydiiyaan powers of vice chairperson awoodaha gudoomiye ku-xigeenka laba qodob buu awood u leeyahay gudoomiye ku-xigeenku labada qodob waxa weeyaan inuu ku xigo qofka inuu ku xigo maxaa la yiraahdaa gudoomiyaha to make the chairperson's responsibilities inuu sii qabto xilkii gudoomiyaha while absent xilliga uu absent-ka yahay sick amaba uu maxaa la yiraahdaa xanuunsanayo or leave ama fasaxa ku jiro responsibility of secretary mas'uuliyadaha qofka xogaynta waxa kamid ah to prepare qofka xogaynta wuxuu qaabilsan yahay afartan qodob isna ka mas'uul yahay saynu arki karno afartan qodob waxa weeyaan inuu prepare gareeyo minutes of meetings shirka marka la gelayo mawduuca shirka marka la qoriyo wixii shirka laga qoriyo qofkaas ka mas'uula oo xogayn yani xogaynimo wuxuu yahayba inuu xogta macluumaadka ama shirka uu markaa uu qoro to deal with correspondences concerning to board inuu wax alaalo wixii correspondences ama macluumaada ee la xidhiidha maxaa la yiraahdaa xog isweydaarsiina inuu xiriiriyo inuu sidoo kale u forward gareeyo notisyada ajendayaasha xubnaha board ama board memberska waxa kaloo kamid ah inuu xiriiriyo GA-gi ama general assembly-gi iyo boardkii iyo agaasimihiina qofkaas xogeynta waa inuu xiriiriyaa oo xiriir ka dhaxaysiiyaa
halka waxaan ka gudbinaa wixii ururka asaasay sida GA iyo board shaqaale baynu galnaa shaqaale waxa ugu horeeya agaasimaha fulintu waxa weeyaan qofka ururka uga mas'uula day-to-day activity-ga marka the purpose of the executive director baa ujeedada agaasimuhu waa inuu noqdo the leader of the organization for 55 daily activities boqolkiiba 5 hawl maalmeedka ururka isaga ka mas'uula directorku isaga responsible wuxuu u yahay boardkii ama boardku mas'uul yahay and is the head of the management team waana qofka maamulka iyo shaqaalaha madaxda u ah waxa kale la yidhi saddex directorku is hired waxa lagu soo shaqaaleeyaa qofka agaasimaha waxa lagu soo shaqaaleeyaa open contract bal heshiis furan with salary or mushaar wata or can come up from ama wuxuu ka dhex iman karaa members xubnaha ururka if he has haduu leeyahay ama mushaarkiisa la bixin karo awoodiisana loo leeyahay responsibilities ka mas'uuliyadaha agaasimaha waxa kamid ah dhibicda koobaad to implement inuu fuliyo policy of the organization siyaasadda ururka represent inuu matalo ururka TTG while signing agreements marka heshiis la geliyo ama la saxiixayo ama kulamadaba approve all financial payments inuu dhamaanba ansixiyo wixii lacag bixina if not more than hadii aanay ka badnayn shak wixii ka badan baa la yiri boardka ayaa shall approve ansixinaya ensuring financial transparency of TTG xisaabta ururka inuu qurux dooto oo ay noqoto mid daahfurnaan leh ayaa iyadana looga baahan yahay in la yimaado coordinating waa inuu xiriiriyo awaawaad socda iyadoo boardkuna ay kormeerayaan ama supervision of the board reporting monthly on all activities support board waa inuu bil walba siiyaa warbixin bilaa waa inuu siiyaa boardka waxa kale looga baahan yahay inuu hiring inuu shaqaaleeyo ama dismiss eriyo heads of departments isaga cidda ka hoosta madaxda ka hoosta uu eri kara waa magacaabi kara laakiin with the approval of board waa inuu board kula ansixiyaan agaasimaha cessation of the executive director agaasimaha sidee loo eriyaa agaasimaha waxa lagu eriyaa siyaabahan dhibicda koobaad terminal of the employment contract heshiiskii lala galo ka dhamaada dismissal by the board boardka afar cod ku eriya ama wax ka badan regarding iyagoo weegaya personnel policy siyaasadda shaqaalaha resignation inuu qofku geeriyoodo resignation iscasilaad management team ka iyagu si guud u sheego oo ku yar fahansiyo management teamku waa cidii shaqaalaha waa shaqaalii koosiga agaasimaha isagana maamula isaga soo magacaaba isaga area iyadoo laakiin ay leeyahay karaan ama xogta ay la wadaagayo erida ama magacaabida cidii markaa maxaa la yiraahdaa boardka ahayd agaasimuhu inta badan maxaa la yiraahdaa shaqaalaha hoose isaga markaa maamula wiigii shaqo u qabtaa kulan buu qabtaa kulan buu wiigii u qabtaa wiigaasi waxa weeyaan maalinta maxaa weekly meeting baa la geliyaa like maalinta ugu dambaysa wiiga ama maalinta ugu horeysa shaqada dadkan shaqaalaha ka hooseeyana laba shay ay ka mas'uul yihiin shaqaalaha hoosaadku laba shay bay ka mas'uul yihiin inay fuliyaan hawl maalmeedka ururka assisting iyo inay agaasimaha ka caawiyaan in making managerial decision inuu go'aan qaadasho maamul ku dhisan oo la tashi leh inuu gaari karana way ka caawiyaan Allahumma salli ala Muhammad inaas baa ugu muhiimsan saan rajeynayo insha Allah marka